Filimku wuxuu ku bilaabmay meel koonfur ka xigta Colombia, madaxa dembiyada Elijah Clark oo la kulmaya maxalliga daroogada Santiago iyo wiilkiisa Geronimo, kuwaasoo soo bandhigay hub weyn oo awood u leh inuu galo shabakadaha iyo nidaamyada kombiyuutarada adduunka oo dhan. Waxay ku tijaabiyeen diyaarad dul maraysa iyaga oo kontaroolaya diyaaradda. Clark iyo askartiisa ayaa dilay Santiago iyo Geronimo isagoo isku dayaya inuu naftiisa qaato, laakiin bilayska ayaa isla markiiba soo weeraray aaga oo ku qasbay Clark inuu baxsado. wakiilka dawladda Luis Royas ayaa helay drive-ka oo uu ku jiro hub uuna qaatay. xarunta CIA ee Langley, madaxda sare ayaa ogaaday in Luis uu qaatay drive-ka uuna diyaar u yahay inuu iibiyo si isaga iyo qoyskiisuba ay ugu baxsadaan si badbaado leh. agaasimaha Larry Marcus wuxuu la kulmay wakiilka Mace iyo lamaanaheeda Nick si uu u soo celiyo drive-ka. lamaanuhu waxay dejiyeen qorshe iyaga oo ku jira bisha malabka, laakiin waxaa jira soo jiidasho sharci ah oo ka dhexeeya labada wakiil. Mace iyo Nick waxay u safreen Paris waxayna aadeen cafeteria uu Lewis ku sugayo si uu lacagta u qaato. boorsadooda waxaa dhexda u galay wakiil kale oo lagu magacaabo Mary oo iska dhigaysa adeegaha cafeteria-da. Mary waxay ku carartay mooto, Mace ayaa ka daba oroday, halka Nick uu daba orday Lewis. Mace waxay raacday Mary ilaa jidka tareenada dhulka hoostiisa mara, halkaas oo Mary ay ku guulaysatay inay tareen ku booddo oo ay ka baxsato. Laakiin way ka naxday markay ogaatay in boorsada ay heshay ahayd lacagtii Mace iyo Nick ay siinayeen Lewis. dhanka kale, Nick wuxuu baxsaday Lewis wadooyinka, laakiin Nick wuu lumiyay oo wuxuu ku dhuntay meel luuq ah halkaas oo uu ka hor yimid Clark iyo mid ka mid ah ilaaladiisa, kuwaas oo weydiinaya Nick haddii uu wado drive-ka. Nick ayaa yidhi maya, markaa Clark wuxuu ku amray raggiisa inay dilaan. Lewis wuxuu aaday qolkiisa halkaas oo uu kula kulmay gabar psychologist ah, Graciela. Waxay isku dayday inay weydiiso halka uu drive-ka ku hayo maadaama ay og tahay inuu aamini karo. isla mar ahaantaana Mary waxay la kulmaysaa madaxdeeda Jonas Mueller intay ururinayeen macluumaadka Mace iyo Nick. inkasta oo Jonas uu isku dayayo inuu ku sii hayo Mary halka ay hadda joogto, waxay ku qancisay inuu u ogolaado inay daba gasho drive-ka. wuxuu isku dayay inuu ku qanciyo inay u baahan tahay koox, laakiin Mary way diiday oo waxay u sheegtay inuu u tababaray si ay u dabagalaan howlgalka ilaa dhammaadka. kadib Jonas ayaa u ogolaaday inay dhammaystirto howlgalka. Mace waxay ku soo laabatay Langley halkaas oo ay su'aalo ku weydiiyeen wakiilada, sababtoo ah waxay lumisay $3 milyan. markay wax ka weydiisay Nick, Marcus ayaa u sheegay in Nick la toogtay, taasoo ku reebtay murugo. kadib markii uu joojiyey kaamarada, Marcus wuxuu u sheegay Mace inay tagto oo ay raadiso drive-ka lafteeda. waxay u safartay London si ay dib ula kulanto saaxiib hore oo ah khabiir sirta internetka, Khadija. kadib markii ay dhex fadhiisatay bandhigeeda, Mace waxay isku dayday inay Khadija ku soo darto hawsha, balse waxay u sheegtay inay hawshii loo diray ay dhammaatay. waxay si farxad leh London kula nooshahay lamaanaheeda Abdul. kadib markay Mace u sharaxday darnaanta howlgalka iyo sababta drive-ka oo ku dhaca gacan khaldan ay u horseedi karto dagaalka saddexaad ee adduunka, Khadija waxay ka caawisay Mace inay ururiso xogta Mary iyo Lewis si ay ula socdaan. Mace iyo Khadija waxay dabagelayaan Lewis iyo Graciela ilaa warshadda, halkaas oo Mary ay sidoo kale raadinayso. markay isu soo dhowaadeen, Lewis mid ka mid ah wakiiladiisa ayaa ku soo jeestay oo toogtay, halka Mace ay la dagaalamayso Mary. Khadija waxay daba socotaa ninkii toogashada geystay, kaasoo ku baxsaday doon kadib markii ay raacdeeyeen Mace iyo Mary. Graciela waxay sii joogtaa dhinaca Lewis isagoo sii dhimanaya, wuxuuna siiyey telefoon lagu furi karo farteeda. Mary waxay heshay Graciela oo ay keentay guri ammaan ah, laakiin waxaa helay Mace iyo Khadija. Mace iyo Mary waxaa ka dhexeeya khilaaf ay damisay Khadija maadaama ay ku heshiiyeen inay dhinac iska dhigaan khilaafaadkooda si ay u wada shaqeeyaan. iyadoo isticmaalaysa telefoonka Lewis iyo faraha Graciela, Khadija ayaa ninka toogashada geystay ogaatay inuu joogo Morocco. gabdhuhu waxay aadeen Marrakesh oo ay suuqa kala socdaan ninka laadarka ah, laakiin waxaa jira isagana rag daba socda. Mary iyo Mace waxay maareeyeen inay wada dilaan dhammaantood. kadib markii ay daba galeen dad badan dhexdooda oo ay maareeyeen inay helaan iyaga oo aan la dareemin, waxay dhexda u galeen drive-kii oo ay qariyeen. Khadija waxay furtay wixii drive-ka ku jiray, kadibna waxay go'aansadeen inay Marcus ku wareejiyaan. kadib gabdhuhu waxay u soo baxeen cabitaan, halkaas oo ay ku sheekaysteen oo ay ogaadeen in Mary aabaheed uu ahaa wakiil Ruush ah, ayna ku qasban yihiin inay dib uga soo celiyaan drive-ka. xarunta CIA-da, naag ayaa soo gashay oo weerartay Marcus ka hor inta aanay toogan. gabdhuhu waxay daawanayaan warar ku saabsan shilal diyaaradeed oo dhowr ah iyo korontada laga jaray 2 magaalo, waxayna garwaaqsadeen in drive-ka uu ku dhacay gacan khaldan. waxay ku soo noqdeen xarunta oo ay ogaadeen geerida Marcus ka hor inta aysan iman wakiilada kale ee CIA-da ee uu hogaamiyo Grady. gabdhuhu waxay heleen fursad kadib hubka dhigista wakiilada ka hor inta aysan baxsan. Mary waxay weydiisatay Jonas inuu caawiyo iyaga, wuxuu ku amray inay soo noqoto, laakiin waxay u muuqataa inuu ku khasban yahay inuu sheego, waana inuu la sii hadlaa in ka badan 40 daqiiqo si ay u helaan goobteeda. Mary ayaa ogaatay taas, waxayna jebisay telefoonka ka hor inta aysan helin goobteeda.
waxay heleen ninkii toogashada geystay oo ay qabteen si ay xog uga soo saaraan. Mary ayaa ka toogatay lugta halkaas oo uu ku dhigbixi doono ilaa uu u dhinto ama uu u sheego waxa ay rabaan inay maqlaan. Dilaaga ayaa argagaxaya oo u sheegaya wax ku saabsan xaraash ka dhacaya Shanghai. Waxay ka joojiyeen dhiigga si aanu u dhiman. Kooxdu waxay aadeen halkaas si ay u tagaan xaraashka iyaga oo isqarinaya. Mid ka mid ah burcada ayaa isku dayay inuu shukaansado Grisela, taasoo helaysa waayo aragnimadeedii ugu horeysay ee arrintan. May sidoo kale way yaabtay markay ogaatay inuu Nick nool yahay. Si kastaba ha ahaatee waxay si dhaqso ah u ogaatay inuu la shaqeeyo Clark oo uu halkaas u joogo drive-ka. Mace waxay la dagaalantay mid ka mid ah ilaalada halka Nick uu fadhiistay xaraashka. Kadib wuxuu ogaaday in naagtii dishay Marcus ay la socoto aabaheed iyaga oo wada drive-ka. Wuxuu qaadanayaa drive-ka kadib markuu gatay. Isla marka uu boolisku yimaado, Mary ayaa abuuraysa qarax. Naagta ayaa markaa wacaysa askarta ka hor intuusan Nick bixin. Mace ayaa ku qabatay qoriga, laakiin Nick wuxuu u sheegay in haddii ay toogato raggiisu ay toogan doonaan dadka oo dhan. Kadib markuu baxo, booliska ayaa imanaya. Waxay isku inay baxsadaan, laakiin haweeneyda ayaa mar kale soo muuqatay oo ay kaxaysay gabdhaha si ay ula kulmaan iyada. Waxay isugu sheegtay inay tahay Ling Ming Sheng oo ah wakiilka Shiinaha, kaas oo sidoo kale dabageliyay drive-ka. Waxay ku wargelisay haweenka in Marcus uu ku jiray nidaamka Clark. Lin iyo aabaheed waxay soo ururiyeen xogta dhowr dambiilayaal kuwaas oo ku sugnaa xaraashka oo uu ku jiro kii shukaansanayay Grisela. Waxay sidoo kale muujisay inay hayso drive-ka dhabta ah. Markuu Clark ogaaday in Nick uusan haysanin drive-ka, waa uu garaacay. Kadibna Nick iyo ilaaladiisa waxay soo galeen guriga gabdhaha. Waxay tusinayaan shaashado kala duwan oo muujinaya in raggiisa ay sidoo kale heleen Abdul, Jonas iyo Grisela ninkeeda iyo carruurteeda, waxaana dhammaantood lagu hayaa qori caaradii. Nick wuxuu muujinayaa inuusan kaftamayn isagoo raggiisa ay dileen Lin aabaheed, Jonas, kadibna Abdul, laakiin gabdhihii way naxeen oo u dhiibeen drive-ka ka hor inta aanay dilin qoyska Grisela. Nick iyo ilaaladiisa ayaa qaadanaya drive-ka iyo sidoo kale Lin si ay uga shaqaysiiso drive-ka. Kadib markay gabdhuhu ka murugoodeen khasaarahooda, waxay go'aansadeen inay dabagalaan Nick markay ogaadeen in muraayadaha Lin ay leeyihiin kaamarad, taas oo u oggolaanaysa inay arkaan halka ay u socoto. Nick wuxuu keenay Lin hoteelkiisa, wuxuuna ku qasbay inay furto drive-ka halka kooxda inteeda kale ay weerar soo qaadeen. Waxay bilaabeen toogashada Nick ilaaladiisa. Linna waxay maaraysay inay sidoo kale la dagaalanto. Kadib markii ay dileen intooda badan, Mace waxay la dagaalamaysaa Nick, kaas oo ka toogtay Mary garabka oo ku dhawaaday inuu dilo Mace ka hor inta aysan Grisela toogan isaga. Maamulka ayaa u yimid si ay u qabtaan haweenka, laakiin Khadija ayaa marka hore burburisay drive-ka. 2 bilood kadib, Nick wuxuu raad raacay Clark oo toogtay. Wuxuu dib ugu soo laabtay CIA-da isaga oo ah agaasimaha cusub ee Grady oo ka caawinaya inuu ogaado Mace iyo kuwa kale tan iyo markii la sheegay inay baxsad yihiin. Mace aakhirkii waxay kula kulmaysaa Nick gurigiisa, waxaana ku soo biiray Khadija, Grisela, Mary iyo Lin. Waxay sun ugu dareen Nick cabitaankiisa una sheegeen inay qorsheynayaan inay u sii gudbiyaan si loogu xiro xabsi caalami ah dembiyada uu galay awgeed. Dumarku way baxeen oo way kala tageen ilaa inta mar kale loogu yeerayo inay wada shaqeeyaan. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.